السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inta dhimata ilaahay naxariis inta xanuun si ilaa caafiya muraadka muraadka khayr la siiyo amiin. Maanta aan ugu beegan tahay 17 bishii 12aad 1447 ku beegan 3 bishii 6aad 2026. Wasaaradda caafimaadka Kuwait ayaa sheegtay in weerar ay qaadeen Iiraan kusoo qaadeen garoonka weynka ee ku dhaco ku dhintay hal qof 63 ay ku dhimatay kaasoo soo gaaray garoonka khasaare weyn. waaxda rayidka maamulka duulista rayidka ee Kuwait ayaa sheegay in terminalka garoonka uu soo gaaray waxyaalo badan burbur iyo dhimasho. dadka garoonkan rakaabkan loo wareejiyey garoomo kale. khasaaraha weyn oo soo gaaray iyo qaybo badan oo soo dumay garoonka soo dumay. waxaa lagu dhawaaqay gurma degdeg ayaa lagu dhawaaqay in la hirgelinayo wixii maanta ka dambeeya. hay-adaha waxay sheegtay in dhammaan duulimaadyada la hakiyey qaarna loo wareejiyey garoomada diyaaradaha. meeshan waxaa kasoo gaaray safaarado diblomaasiyadda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuwait ayaa adkaystay in dalka uusan aqbali doonin weerar uga imaado Iiraan. dhanka kale ciidamada Kuwait ayaa sheegay inay si dhow ula socdeen xaaladda isla markaana ay qaadi doonaan tallaabo kasta lagu ilaalinayo maamulka dalka. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka CENTCOM ayaa isna sheegay in uu fashiliyey mowjado weeraro Iiraani ah oo lagu beegsaday dalalka gobolka ku yaal, isagoo sheegay in diyaaradaha daroniska iyo balastik ah Iiraan ay leedahay ay gaareen bartilmaameed ay rabeen. bayaanka oo dambe ayaa CENTCOM ku sheegtay in mowjado cusub oo drones Iiraani ah isku dayeen inay bartilmaamsadeen ciidamada Mareykanka cirka ee Kuwait, balse markaan la fashiliyey ayna gaarin wax khasaare ah. dhankiisa ilaalada gacanka ayaa sheegay in weerarkaasi saldhigyada Mareykanka uu ahaa gobolka ku yaala iyo sidoo kale ciidamada badda ee shanaad jawaab ka dhan ah weeraradii Mareykanka ku qaadeen jasiiradda Qaashi. waxay sheegeen in Mareykanka weeraray markab shidaal oo Iiraani ah oo ku sugnaa meel ku dhow marinka Hormuz. Mareykanka wuxuu weeraray markab uu leeyihiin Iiraan oo ku dhow marinka Hormuz, meesha loo maraan maraakiibta. markaas Mareykanka duqay, taasoo dhaawac soo gaara khasaarooyin qaybta matoorka kasoo gaaray. markabka waxaa kasoo gaara khasaare dhinaca matoorka. ilaalada gacanka ayaa intaas ku daray inay weerareen markab lagu magacaabo Banaya oo ay sahniyadda iyo Mareykanka, taasoo ay ku sheegeen jawaab ka dhan ah weerarkii markabka shidaalka ee Iiraan. qaniinka fadhiisa markab Iiraan oo ku dhow marinka Hormuz ay weerareen. ciidamada gacankana waxay weerareen markab la dhaho Banaya oo ay leeyihiin Israa'iil Mareykanka. qaniinka fadhiisa dalal badan oo Carbeed oo ka mid yihiin Kuwait, Khaliijka, isagoo ay cambaareeyeen wadamada Khaliijka sida Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia ayaa waxay cambaareeyeen weerarada Iiraan ku qaaday Kuwait, iyagoo ku tilmaamay tallaabo khatar ku ah
xasilinimada gobolka. Ambeeren muxuu tarayaa dhibka Iiraan waxay u weeraraysaa waxa weeyaan meeshaasaan loogu soo duulaya because waxaa ku yaala taliska ciidamada Maraykanka cirka ku yaalo ayakan meesha oo dhib ugu imaana ayakan waxay rabaan inay u jawaabaan waa cambaarin waxay taraysaa si carabta dhexdoo kale maayo اتفقت العرب ألا تتفق عرب وهشيس ولقيت ما هشين وعركسها شراع لو خبرنايا قاهرة لو خبرنايا مصر لو خبرنايا قبل كان لأن كذب مركوبة ميسا ولوك العرب لا سحنا قال ويروح على قبل كان مركز حدا اتفقت العرب ألا تتفق والو قد بين مركوبة من ولوك الكلام عايشيس من دانك كان مسؤولين مرايكنا شيء إن عسكري مرايكنا هي شغالة ريدة يكون دعوة فقط كسجاري ويرن قتالة ولا لو قاضي سليجة السليم الكويت إيران وحي قاعدي وحن ويخبتين وحن بدل ما خسارة سجار الكويت كرون كوالي بالبريخ hal qof oo ku dhimatay 63 qof oo ku dhacmay ciidan Mareykan kanu khasaaro soo gaaray khasaarada loo qarnayaan marka degay wixii ku soo kordho warkaan waa inoo soo siin doonaa insha Allah saa in xisaabsano taageero janalka nabadiina. Assalaamu calaykum.